ku soo dhowow Somali Magazine. ciidamada dowladda Itoobiya oo gacanta ku dhiga magaalooyin horlo ay ku sugnaayeen ciidamada jabhadda TPLF. diyaaradaha dagaalka oo maalintii labaad duqeymo xiriir ka geysanaya magaalada Alamaate ee gobolka Tigreega. warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan duqeymaha diyaaradaha dagaalka maalintii labaad ay ka geysanayaan magaalada Alamaate oo ka tirsan gobolka Tigreega. duqeyntan waxaa lagu warramayaa inay tahay maalintii labaad oo diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ay geysanayaan, iyadoo jabhadda TPLF ay sheegayso in la duqeynayo ama la bartilmaameysanayo goobo ay ku sugan yihiin dad rayid oo ka tirsan magaalada Alamaate ee gobolka Tigreega. maalintii shalay ayaa jabhadda TPLF waxay shaacay ka qaaday duqeyntii ugu dambeysay ee Alamaate ka dhacday in lala eegtay suuq ay ku sugnaayeen dadka deegaanka ee magaalada Alamaate oo ka tirsan gobolka Tigreega. duqeyntan ayaa waxaa lagu warramayaa magaaladaasi in maadaama ay tahay goob istaraatiiji ah looga dan leeyahay in gacanta lagu dhigo guud ahaan magaaladaasi Alamaate kadib markii ay baqdin ay soo wajahday ciidamada Tigreega ee halkaasi ku sugan. duqeyntii maalintii shalay ka dhacday magaalada Alamaate ee gobolka Tigreega khasaaraha ugu badan waxaa lagu warramayaa inay ka soo gaareen dadka deegaanka sida jabhadda TPLF ay baahisay, laakiin dowladda ma jiro wax war ay ka soo saartay duqeyntan. duqeymaha ayaa waxaa fulinaya diyaaradaha dagaalka kuwaasoo taageero siinaya ciidanka ammaanka ee dowladda Itoobiya. ciidamada cirka ee dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale qayb ka ah kuwa fulinaya duqeymaha dhanka cirka ee ka dhacaya deegaano ka tirsan gobolada Amxaarada iyo Tigreega. muhiimadda ay leedahay magaalada Alamaate ayaana ciidanka dowladda ku qasbaya inay xoog ay saaraan sidii gacanta ay ugu dhigi lahaayeen. dhinaca kale ciidamada dowladda Itoobiya ayaa lagu warramayaa inay qabsadeen deegaano iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Wollo. deegaanada gacanta ay ku dhigaan waxaa ka mid ah deegaanka Grana, magaalada lagu magacaabo Meersa, deegaanka Warguuse iyo deegaanka kale ee Libso, sida mas-uuliyiinta deegaanka ay warbaahinta u sheegeen. magaalooyin kale oo muhiim oo ka tirsan gobolka Wollo ayaa sidoo kale lagu warramayaa inay soo galeen gacanta ciidanka militariga sida hadalka ay u dhigeen mas-uuliyiinta dowladda. deegaankaasi oo ka tirsan Amxaarada iyo deegaano kale ayaa lagu warramayaa in ciidamada dowladda maalintii shalay ay qabsadeen kadib markii dagaallo xoogan ay ka dhaceen. jabhadda TPLF iyo ciidamada Oromada dhankooda guula ayay sheeganayaan, waxaanay sheegayaan inay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidanka dowladda ee ku yaala deegaanada dhacdhanka waqooyi ee dalka Itoobiya. dhinaca kale arrinta waxay ku soo beegmaysaa xilli ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu ku sugan yahay magaalada Istanbul, halkaas oo uu kaga qayb galaya shirka u dhexeeya madaxda qaaradda Afrika iyo mas-uuliyiinta dowladda Turkiga, shirkaas oo arrimo dhowr ah looga hadlayo.